kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena kulanka oo toddobaadkiiba mar ka daawataan telefishinka Kalsan. barnaamijka kulanka maanta waxaan kaga hadlaynaa xaaladda waddanka Djibouti oo iminkii ugu dambeysay ka soo daraysay taasi oo mudaharaadyo waaweyn gelgelin toddobaadyadii la soo dhaafay. sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa xariga Duuliye Fuad. barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Maxamuud Jaamac oo ah agaasimaha idaacadda codka Djibouti oo iminka isagu ku sugan dalka Faransiiska, waxaana inoo suuro geliyay in aan qadka Zoom-ka ku kulanno. u diyaar garooba barnaamijka. Maxamuud, ku soo dhawow barnaamijka kulanka ugu horeyn. waad mahadsantihiin horta waan dhawahay sida aad noo soo maxsuunteen waad mahadsantihiin mar labaad idaacadahaas oo run ahaantii dadka reer Djibouti ay xiiseeyaan inay daawadaan idaacadda Kalsan oo kale. aad iyo aad idaacadda aad agaasimaha ka tahay ee codka Djibouti xagee ku taalaa, xagee xarun waa ma waxay ku taalaa dalka Djibouti mise waa dibad joog sida aad adiga dibad joog u too kale? walaalow horta Djibouti wax lagu ogol yaho xag idaacadeedii ma jirto, marka sida aadba arab ku dhifatay sida aan goodjooga dibadda aanu ahay ayaan maaragtay idaacadda codka Djiboutina ay dibadda u joogtaa inta si aanka xarunteedu ay dibadda tahay inkasteeto oo wariyayaal ka mid yihiin ay Djibouti ka howlgalaan. okay, maxay tahay sababta ay idaacaddu ay ugu howlgali laadahay gudaha dalka Djibouti? waa su'aal wallahi fiican. Djibouti ilama ayaanti calanka qaadanay ilama maantada aan joogno ma jirto idaacad dad maaragtay reer Djibouti oo kale ay leeyihiin oo ka hirgashay ma jirto. idaacadda waxa kaliya ka jirta idaacadda xukuumadda amba maaragtay idaacadda waddanka oo xukuumaddu ay leedahay oo dad kale ay ka hadlin. taa ayaa ku tusaysa maaragtay waxa ay uga hirgeli laadahay maaragtay idaacadda iyada oo kale in Djibouti ay maaragtay ka howlgasho. taa ayaa ku tusaysa waayo waxaba yaraata dadka reer Djibouti ay ka hadlaan oo loo ogol yahay ma jirto. idaacadaha kaliya hatee lagu ogol yahay idaacado dibadaha kaleeto amba Soomaalida ku wato oo halka qof uu joogo maahine idaacad uu dad leeyahay oo Djibouti ka hirgali kartay maanta ma jirto. nasiib darradu waa halka weeye. maxay tahay sababta ay warbaahinta ay uga soo horjeedo dawladda Djibouti? wallahi waa horta waa su'aal fiican oo in la weydiiyaa iyagana maaragtay si fiican maaragtay aan rajaynayno inay uga jawaabi karaan, laakiin anaga ahaan sidaan u aragno waxa weeye dadka reer Djibouti waxaan u aragnaa run ahaan dad maxbuus oo kaleeta ah laga diidayo maaragtay inay warar ay helaan, wararka xogta ee waddanka inay helaan. dad la diidayo, dad loo diidayo inay maaragtay maskax furnaadaan, ay doodi karaan, ay maaragtay ay qaadan karaan maaragtay wixii u fiican iyo wixii ka xun ay kala saari karaan. dad maxbuus ah oo maaragtay meel lagu xidhay ayaanu aragnaa. dadka sida ahaan ayay u tahay maaragtay inay diidaan maaragtay dawladdani dadkaasi oo ay leeyihiin idaacada maaragtay xor ah oo maaragtay qowlkooda tabinaya haddii ay waddanka ka dhashaan waxa dhici karta inay maskax furfurnaan ay timaado. waxa dhici karta in maaragtay dadku ay doonaan inay maaragtay xuquuqdooda ay doontaan. taa ayay maaragtay waddanka inta badan dawladda maanta waddanka haysatay ay ugu hor joogtaa in ay la helo maaragtay idaacado xor ah, idaacado wararkii xogta aha meesha keeni karay. marka maadaama aad sheegtay in furfurnaanta ay dawladdu diidan tahay, maxaad u malaynaysaa adiga sababaha ay uga soo horjeedo isdhexgalka bulshada iyo furfurnaanta iyo xadaarinimada? waxaad garataa walaalow horta waxaan joognaa bishan 27keedii bishan June ee maanta 30ka 27keedii Djibouti waa ayantay calanka qaadatay. calankaas 43 sanadood ayuu jiraa. sax. calankaas waxa daba galay oo dadka reer Djibouti ay yeesheen laba madaxweyne oo isku ahaa adeer maaragtay oday madaxweynihii horeetay waddanka ka talinaya Xasan Guuleed Abtidoon oo adeer u ah ninkan maanta ka taliya waddanka Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweynahaas oo lahayn wiil gabadh maaragtay aan lahayn oo dabadeedna waddankii
u qaaday oo siiyey maaragtay ina kayro adeerka u ahaa Ismaaciil Cumar Geelle taa ayaa keenaysa maaragtay in maanta xaaladda ay Djibouti ku jirto ee ah maaragtay in wadankii haba yaraatee wax furfurnaana ay ka jirin maaragtay taa ayaa keenaysa waayo xukunkaasi ma doonayo maaragtay in furfurnaan in maaragtay xukunda isbedila oo dadku ay madax banaanaadaan inay Djibouti ka dhacdo ma doonayaan dadka maanta meesha ka taliya xukuumadda Djibouti ka taliya taa ahaan ayaa keenaysana in saxaafadii maaragtay anaga saxaafad baan nahay saxaafadii in dagaal xooga lagu hayo oo waayo hadday saxaafadaasi ay yeelato furfurnaanta waxyo badan oo maanta qarsoon ayaa soo baxaya صح xagga isdabamarin xoola hadday noqoto xag xukun jacayl oo xukun xajis hadday noqoto xaqii dadka oo maanta halka ay nolosha dadku halka ay joogto ay meel hoose ay tahay taa oo dibadda la soo dhigi karayo la oran karayo waa kan dadka reer Djibouti ay u nool yihiin oo dibadaha laga arki karo marka dadkan maanta walaahi xukuumaddan maanta meesha ka tirsan Djibouti waa dad jecel in shacabka loo tiriyo shacabka amba loo ciyaaro doonayn in dadka reer Djibouti ayna arkaan amba dibadda laga arko dadka reer Djibouti nolosha ay ku nool yihiin in la arko dad nacaya weeyaan maxamuud waxaad noo sheegtay dawladda hadda jirta in aan waxqabad saa u sii buuran uusan jirin oo ay doonayso kaliya in loo sacabtumo ama loo ciyaaro sida aad hadalka ugu dhigtay bal meesha inoo faahfaahi si bulshada ku daawanaysa ay u fahmaan hadalkaaga dulucdiisa walaal waxaan ka soo qaadanaynaa masaalo in horta Djibouti maanta xukunkan maanta ka taliyay waxa uu jecel yahay run ahaan aan ku celinaynaa waxa ciyaaraha amba waxa maaragtay loo maslaxo ee laga dhaadhiciyo inuu si fiican ay Djibouti u socoto isagoo iibsanaya arrimahaas oo kaleete waxa uu ka iibsanayaa maaragtay idaacadaha hadday ku tahay kuwa afka Faransiiska ka soo baxa waxa kamid ah journalka Jeune Afrique la yiraahdo oo lacag badan Djibouti sanadii ka seetay maaragtay ka qaata iyaga oo u qurxinaya iyaga ayaa qoraba maaha wuxuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle yiraahdo waxa uu maaragtay wasiirada kale ay yiraahdeen iyaga ayaa gacantooda ku qoro u hagaajiya maaragtay Djibouti sida meel fiican bay ku socotaa meel qurux badan bay joogtaa iyagoo rajeynaya inay lacag badan ka qaataan waxa kaleeto jirta joornaalo badan oo kaleeto amba idaacado afka maaragtay Faransiiska ku soo baxa oo sida iyaguna lacag badan Djibouti ka qaata si ay maaragtay iyaga oo diidaya xaggii dadkii mucaaradkiina inay hadalka siiyaan xaggii dawladdii marka ay soo marane u qurxinaya oo u yar hagaajinaya wixii xaqiiqdii aanan ka hadlayn oo ka hadlayo oo keli lahaatay siday u qurux badnayn lahaayeen taa ayaa jirta waxaa kaloo jira idaacado badan oo Soomaaliya oo afka Soomaaliga ku hadla oo iyaguna ka qaatay Djibouti lacag badan ayaanta lacagtaasi ay loo shibi waayay dadka xagga mucaaradka dadka la soo yar hadla oo marka ay rabaleedada maxaad u baahantii naga joogsada wixii waan siinayna waxa soo dhan waxay Djibouti ay u iibsanaysaa waa in xaqiiqada dadka reer Djibouti sida ay u nool yihiin aan laga hadlin runahan Djibouti lacag badan ayaa soo gashay lacagtaas oo ka soo gashay xagga marsooyinka Djibouti marsooyinka maxaa kala jeedaa amboleet xagga ciidamada marsooyinka waxaan u jeedaa dikadaha Djibouti xagga dikadaha boorarka marsooyin baan anagu naqanaa xagga Soomaalida waxa u yaqaaneen maaragtay dikada u yaqaaneen marka anagu dikada waxaan u naqanaa tayara laamiyada baaburada ay maraan ayaan inta badan reer Djibouti hadaan nahay aan u naqanaa marka waxaan dhahnaa tan marsooyin baan idhahnaa marka dikadaha lacag badan ayaa ka soo gala oo Djibouti inkasteeto madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle yiraahdo budgetka amba budgetka wadanka waxa ay intaas yihiin 10% ay yihiin dadka reer Djibouti iska wada garanayaan waxa soo gala in lagu qiyaasi karo 300 oo milyan oo dollar ayaa sanadii ka soo galay xagga wixii ciidamo ah ee Djibouti jooga Mareykan ku ahaato Faransiis haday ku ahaato waa lacagta laga qaadanayo ciidamadaas waxa kale oo ugu beerta lacagta dedikadaha ka soo galaysa oo iyadana xoolihii Itoobiya oo dhan ayaa Djibouti marta marka
lacag way soo gashaa Djibouti laakiinse lacagta cunaha ayaa ummadda reer Djibouti laga hayaa marka cunahaana waxa lacagtaas waxa lagu iibsadaa si dadka debadaha ambooleta idaacadaha debaduhu ayna uga hadlin xaqiiqda dadka reer Djibouti si u nool yihiin oo moodaysid inay marka aad la dul maray Djibouti balbala oo kale marka la eego waa meesha ugu weyn Djibouti dadka reer Djibouti halka ay ku nool yihiin waa meesha ugu ballaaran meeshaas marka dul marayso waxaad moodaysaa meesha ay digaagu ay ku nool yihiin meelaha yar digaagu ay ku nool yihiin adduunyada buulalka yar digaagu ku nool yihiin ayaad moodaysaa inay maaragtay meelaha digaag lagu dhaqo laakiinse nasiib darro dadka reer Djibouti ayaa halka ku nool marka xaqiiqadaas oo dhan ayaa la diidayaa maaragtay inay dibadda u soo baxdo oo markaaba la aamusiinayaa idaacadaha dibadda in maaragtay qoraalada dibadda ayaa la iska aamusiinayaa lacag badan ayaa lagu bixinayaa lacag siyaada oo maaragtay ayaa lagu bixiyaa marka taa ahaan baan u leeyahay maaragtay oo waxa kale soo jira dad maaragtay heesaaya oo maaragtay Soomaaliya si madaxweyne Ismaaciil Umar Geelo la yiraahdo waa haliyay waa nin maaragtay wax sameynaya oo lacag badan ay kaga qaataan run ahaantii dadka reer Djibouti ay ka gaajaysan yihiin ayna dadkaasi ayna u fiirsan dadka reer Djibouti ay u nool yihiin iyo xaqiiqda Djibouti ka taagan maxamuudow waxaad ka dhawaajisay dad lacaga lagu bixiyo si ay barabaganda ugu sameeyaan madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ama dawladda Ismaaciil Umar Geelle oo madaxweynaha ka yahay oo 22 sano ay ka talinaysaa dalka Djibouti maadaama aad noo sheegtay wargeysyada ajaanibta sida kan Faransiiska oo kale warbaahin Soomaaliyeed ayaa jirtana aadna tiri warbaahinta Soomaalidu waa kuwee dadka fanaaniinta ase magacadooda ma inoo sheegi kartaa horta anigu horta inaan walaalaheena Soomaalida run ahaantii waxaan u arkaa inta badan inay Djibouti wax badan laga garanayn oo ay maaragtay dadka reer Djibouti nasiib darrada ka taalay waxay ahayd garasho la'aan oo ay Ismaaciil Umar Geelle ay u haysteen nin sida qadiyadda ummadda Soomaalida u dhaqdhaqaaqaya isaga oo maaragtay run ahaantiina ay ahayd nin maaragtay iibinaya qadiyadda ummadda Soomaaliyeed sidoo lacag uga qaato marka dhinac waxbu ka siinayay ummadda reer Soomaaliya xagga wargeysyada oo lacag la siinayay dhinacna waxa uu iibinayay dhibaatadooda ayuu adduunyada ka iibinayay uu lahaa maaragtay dadkaasi dhibaato ay ku jiraan isaga ayaa wax kaga qaadanay marka inta badan xagga Soomaalidu garasho la'aan badan ayaa jirta laakiinse run ahaan imika wax runtii ayaa soo baxday wargeysyaal badani way ka soo noqdeen oo arrimaha maaragtay Djibouti il kaleeta ayay ku eegaan laakiinse dad waxa jirta maantada aan kula hadlayo iyadoo dhibaatadaas oo dhan ay jirto dad ku sii adkaysanaya halkii oo waxa kamid ah ninka la yiraahdo iskalashi oo imika leh wadankiina maaragtay reer Djibouti maaragtay habaabiinaya dhinac kaleeta maaragtay ka tusaya dadka reer Djibouti ha dhaqdhaqaaqina dhibaataha sameynina maaragtay hadal caynkaas maaragtay duubay oo maaragtay ku taageersano madaxweynaheena iyo dadkiin way fiican yihiin halka kaga haya marka inta badan Soomaalidu waxay isticmaalaysay war wadankiina nabadda anagu dhibaatan soo aragne wadankiina nabadda maaragtay ku adkeeya laakiin dhibaatada dadka reer Djibouti haysata haba yaraatee may eegin dad badan ba maanta wargeysyala amba maaragtay suxufiyiina ayaa maanta qiranaya oo le war dadka reer Djibouti dhibaato tani aad maanta ku nooshiin war nolol ma hina ka kaca oo dhibaatada iska qaada ayaa maanta leh oo awalkii hore taan arkayn waayo waxa loo soo duubay markii ugu dambeysay arrinta ninka liyadno laba xidig leh amba dhibaatan liyadno Fuad ninkaas laba xidig leh liyadno Fuad Yusuf Ali oo soo duubay maaragtay isagu nasiib u yeeshay inuu soo duubo meelaha dadka reer Djibouti lagu xiro isagoo kaniif dul fadhiya oo baranbaradi iyo maaragtay jirkiisa sida uu go'ayna dadka Soomaalida oo dhan maaragtay la qaybsaday taa ayaa run ahaantii waxyo badan ka bedeshay fikradihii hore ay ka qabeen Soomaalidu marka waxaan oranaynaa wata dadka reer Djibouti dhibaatada ay ku nool yihiin waxaad noo sheegtay in lacagaha ka soo gala ciidamada waxaan u fahmay saldhigyada 8 ka badan ee ku yaala dalka Djibouti ee dawladaha waaweyn ee caalamka lacagaha ka soo gala ay gaarayaan
oo milyan oo dollar maadaama dadka Djibouti ay ka yar yihiin 1 milyan oo ay yihiin dad aad u tiro yar dhaqaalaha soo galana ayba ka badan yihiin lacaga xadka bax ay yihiin maxay tahay sababta dawladdu ay dhuunta u hayso oo aysan lacagahaasi soo gala bulshada dib ugu celinaynin maxay tahay aad is dhigi kartaa adiga ka maxamuud ahaan waxaa la odhan karaa wallaahi anigu waxaan odhan karaa waa fikrad horeeto oo guumaysta ah waa fikrad horeeto xagga Ismaaciil Umar Geelle waa in la fahmaa dadka reer Djibouti amba dadka Soomaalidu ay fahmaan ayuu ahaa Ismaaciil Umar Geelle wuxuu ahaa nin la soo shaqayn jiray oo dabadhilif u ahaa gumaystihii waddanka sax gaalkii ayuu ahaa marka ninkaasi waxa uu fikradaha ka dhaaldhacsan amba maaragtay mabda uu ka qabo dadka reer Djibouti oo ah in gaajo dadka lagu xukumo cunaha la qabto gaajada afkiisa wasiiro ayaa maanta nin wasiir ahaayo horeete ayaa yidhi si cad u sheegay oo yidhi war ninkaan waan la soo shaqeeyey waan garanayaa waxa uu yahay ninkaasi waxa uu yahay nin reer Djibouti markaan nidhaahno war waxaabaan qabanaynaa sidaabaan wax u qabanaynaa dadka saabaan ugu taakulaynaynaa nin naga yidhaahdaa may dadkan sidaa bay ku fiican yihiin dadkan sidaa ayaan ku xajin karnaa haddii kaleete waxa ay doondoonayaan waxyow kaleete waxay doondoonayaan waxa la yidhaahdo xorriyad ayay doondoonayaan hadday dhargaan haddii waxay cunaan ay helaan marka waa inay ku mashquulsanaadaan siday u heli lahaayeen kooraan biyo iyo wax la cuno siday u heli lahaayeen waa inay ku mashquulsanaadaan sida ahaan ayaan meesha usii fadhii karayaa waxaad garataa in walaalow ma u malayn kartaa waddan bilaa lacaga ma samaysan lahaa waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhaahdo fond souverain amba lacag debadaha la dhigto oo markay ku dhaafto sidii maskax ahaan dadka ka dhaadhici karta kolkaad lacag siyaada ah haysatid ayaad meel wax dhigan kartaa maanta dadka reer Djibouti waxa laga dhaadhicinayaa in lacagaha Djibouti ay dhaafeen ay ka siyaada yihiin in sanduuq loo samaynayo lacagtaas oo waayada dambeete si maaragtay dhalinyarada soo kici doonta waayada dambeete si ay wax ugu falaan in sanduuq caynkaas ah la sameeyey sanduuqaas oo loo dhiibay dad reer Djibouti maahina dad Afrikaan ah loo dhiibay waliba oo dadkii reer Djibouti maaragtay laga xeeray marka waxa ku tusaysaa lacag siyaadii inay meesha taalo laakiinse lacagta siyaadada dadka reer Djibouti inay ka gaajoonayaan inay maaragtay bilaa dhakhtar ay yihiin inay maaragtay bilaa tacliin ay yihiin wax alla wixii dad ku noolaan lahaa bilaa aqal ay yihiin bilaa kooraan ay yihiin bilaa biyo ay yihiin ayaa dhinaca kale tana taala marka waxa maskaxdi gali kara ma waa hagaag waxaad inoo sheegtay in aad ka mid ahayd xisbi lagu magacaabi jiray PRD xaguu ku dambeeyay xisbigaas xisbigaasi waxa uu ahaa horta xisbi kii ugu horeeyay xagga dimuqraadiyadda markii waddanka laga abaabulay 1900 iyo maaragtay 29 markii la yar furfuray xisbigaas oo Allah u naxariistay Maxamed Jaamac Ceelaabe nin wasiir horeete oo xagga maaliyadda iyo maaragtay wasiirro badan Djibouti ka soo qabtay oo markii dambe tan markii uu fahmi waayay iskaga baxay uu sameeyay xisbigii waxa uu isku bedelay iyadoo dagaal weyn lala galay oo ninkaaba sida uu ku dhintay wallahi maanta halkan aan ka sheegi karin oo aan garanayn run ahaantii markii uu dhintay waxa loo bedelay xisbigii maaragtay iyadoo in la baabiyo xagga dawladdu ay doonaysay wuxuu isku bedelay xisbiga la yiraahdo MRD ambo maaragtay maantana uu madaxa ka yahay Dr. Daahir Axmed Faarax daaf la yiraahdo ayuu isku bedelay oo dadkii halka ahaay oo dhan ka ay isku bedesheen waayo waxa la joojiyay bay ahayd xisbigii BRD dawladda ayaa xakamaysay oo tiri maaragtay xisbigaas waan kala laamaya maaragtay jirrigiisa imikana waxa ay sameeyeen inay yiraahdeen kani kaleete MRD waan kala laamaynaa jirrigiisa inuu jiro waan kala laamaynaa xisbi waxa weeyaan dad ayuu ka kooban yahay maaragtay ma aha oo kaliya waxay dawladdu siisay marka sida ahaan ayuu iskaga jiraa maanta sax marka sidaas baa keentay inaad dibad joog noqotaan haddii aad tihiin qolyaha dimuqraadiyadda u dhaqaaqa ee Djibouti
wallahi ha inta badan inkasteeto oo xusbiyadan maaragtay xusbigan dad badan oo maaragtay kamidihii ay Djibouti joogaan hase ahaatee bar badan oo kamid ah ayaa maanta dibadaha jooga xusbigan oo kaliya timaana xusbiya kaleetana way jiraan oo maaragtay dibadaha dadkooda ay bar joogaan bar kaleetana gudaha ay joogaan waxaan ku oranayaa sida saxaafadba Djibouti loogu ogoleyn waxa looma ogolo oo kaleeta xusbiyo in Djibouti ka jiraan xusbiyo uu isagu la samaystay oo maaragtay dawladda ku dhex jira ma ahine xusbiyo kaleeto oo diidan amboleeto wax celin kara amba wax oran kara Djibouti waa la diido oo xusbi nool oo maanta la oran karo xusbiga ayaa jira ma jiro xusbiyada waa la wada masaxay waxa kaloo la masaxay xaqii rayidka ururadii sandikada ahaa maaragtay dadka rayidku ay lahaan lahaayeen kuwa waa la wada masaxay marka maanta wax Djibouti jira dawladda oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela madaxa ka yahay maayna wax kaleeto oo jira oo ku oran karayno waxaaba Djibouti jira ma jirto waa ninka urursanaya xoolaha dibadda ka soo gala waa inta ay Djibouti maanta nasiib darradu ay ku soo kooban inta ay ku soo kooban sax maadaama dunidu ay hadda horumartay oo ay naqatay xaafad yar ee lagu wada jiro caalamku noqday marka loo eego baraha bulshada ay ku xiriiraan wacyigelin ma gaarsiiseen dadka reer Djibouti in ay maxal jiray dimuqraadiyadda iyo xorriyadda u dhaqdhaqaaqaan oo ay ka qayb qaataan dhismaha iyo horumarka dalka uu ku talaabsan lahaa ama ay rajaynayaan inuu ku talaabsado ama ay dawladda ay ula sameeyaan isla xisaabtan dhab ah oo meesha ka saara caqabadaha jira wallahi sidaan horeba u sheegay waxa weyn dadka reer Djibouti maanta waxa la oran karaa imika ayay yar furfurmaysaa dadku ay dhageysanayaan xagga baraha bulshada sax laakiin intii hore waxaad boodaysay in idaga yara kaliyaatay idaacadda yara kaliyaatay loo sameeyay idaacadda yar lagala hadlo in maaragtay xagga kaleetana hanjabaad iyo ciidamo mar alla markay maaragtay dibadda dadku ay cabiraan ay doonayaan dibadda ay u soo baxaan waxa lagu isticmaalayaa maaragtay amba rasaas baa lagu isticmaalayaa amba ciidamo tana ayaa lagu isticmaalayaa si looga cabsiyo xaafadaha ayaa habeenadii lagu daadanayaa maaragtay oo iyagoo dadkii oo xidhan wejiga xidhan ayaa kuu soo daadanaya ku qaadaya qofkii qaadaya la garanayn meel alla meel uu ku maqan yahay qofkaasi dad badan xabsiyada ay ku dhinteen bar badan oo kale waa lagu hayaa dadka argagixin ayaa ummadda reer Djibouti la gasho oo cabsi badan ayaa taala inkastoo aad moodaysid cabsidaasi maanta inay soo yaraanayso oo dadkii waxaad arkaysaa iyagoo bannaan baxaya inkastoo dharaari ay soo baxayn habeenadii ayay soo baxayaan marka waxaad arkaysaa inay wax iska soo bedilayaan ay dadku ay soo maaragtay soo fahmayaan in haddii toole meeshan itaalka lagu haysti inuuna soconin ayaa maaragtay ayaad arkaysaa waqtiyadan dambeeta inay soo biirayso marka wacdigelinka xaggan maanta idaacaddayadan oo kaleetana run ahaantii waan wacdigelinaa waayo wax awalkii horeeta aan jirayn ayaa maanta Djibouti jira oo idaacaddayadana ay samaysaa waa wararkii oo soo baxay wariyaashiyeeda iyo maaragtay shaqaynayo inkasteeto wallahi iyagu ku dhowdo dhibaato badan ay ku mutaan oo bar badan naga xidho oo bar badan dhibaato jirdira loo geysto hase ahaatee waa dad isbiimiyeen naftoodu way u hureen in dadka reer Djibouti ay wararka gaarsiiyaan marka taana wax badan ayay ka tartay oo dadku waxay arkayaan dadkii oo isbiimiyeynaya oo wararkoodii dhibaatadii haysatay adduunyada loo tabinayo ayay arkayaan marka taana niyad ayay sii siinaysaa marka qof alla qofkii kasteetay dhibaato ku jiri uu hadlayaa maanta awalkii hore ma uu hadlay صح بريء دويد waxaa Djibouti ka dhacay mudaharaadyo waaweyn oo xitaa dawladda Mareykanka ay muwaadiniinteeda uga digtay meelahaasi in aysan booqan mudaharaadiyadaasi xaggee ku dambeeyeen maxayse ku dalbanayeen dadka mudaharaadayay horta waxa Djibouti waa sidaan ku sheegay oo dhibaatadu waa dhibaato jiraan oo ilaa waqtiyo badan bay soo jirtay dadka reer Djibouti xaafadaha ay inta badan ku ooyayeen way wada qof kasteeto reer Djibouti waxa xabsiyada ka dhaca waa la wada og yahay dad badan inay ku dhinteen waa la wada ogaa laakiinse ma jirin weli wax run ahaantii taswiir u soo qaaday oo tusay dadkii oo hor dhigay wakaas waxa meesha ka jira weli ma jirin baahay waxay ahayd sheeko oo kale way dhacdaa dadka reer Djibouti kamay fikirayn inay wuxuu sidaa tahay halka ay gaarsiisan tahay
kamay fikireen marka waxa dhacday inaan duuliye ah oo reer Djibouti ah inuu wadanka uu video duubay isaga oo leh wallahi dhibaatooyin weyn ayaa wadankeena jira dadka reer Djibouti xuquuqdiina u kaca isaga oo sidaa kale oo maaragtay maanta aan wadankii waan ka baxsaday marka inaan kaas oo u baxsaday dalka Ethiopia صح dalka Ethiopia ayaa maaragtay inaan ka la soo qabtay Djibouti ayaa dib dambe loogu soo ceshay صح waxa ay dadkoodu ay doonayeen muddo bil ah ayaa la garan la'aa meel alla meel ku sugan yahay iyo halka uu maray dawladda Djiboutina ay sheegin in iyadu hayso kaas waxa dhacday in dabadeed uu dalbaday oo la keenay maaragtay markii dadkii ay xaafadoodii ay meel ka samareen wasiir loo tagay meel ka setay anagu ninka ma garanayna ay wada yiraahdeen dawladdii ayaa waxa dhacday in markii dambe ta la keenay xabsiga dhexe ee Gabood xabsigaas oo markii la keenay loo ogolaaday dabal inuu yeesho qareen inuu yeesho iyadoo arintu caynka ay tahay oo qareenkii arintii lagu jiro dadkii reer Djibouti ay wali la doonayo oo ninkaas halkuu maray la leeyahay ayuu inankaas ay u hirgashay inuu soo duubo muuqaal isagoo ku dhex jira xabsiga isagoo ka waramaya sidii loola dhaqmay halka lagu hayo sida ay tahay taswiirna uu soo taswiiray jirkiisii sida uu yahay dadkii uu soo taswiiray ayaa maaragtay dibadda baraha bulshadu ay soo gashay taa ayay dadka reer Djibouti run ahaantii ay qaadan waayeen marka ayaantii ku xigtayba maaragtay ayaantii videoga la daawaday maaragtay amba muuqaalka la daawaday dadka reer Djibouti dikadaha ayay u soo baxeen sideediiba dawladda Djibouti waxay kala hortagtay maaragtay Itaal ayay kala hortagtay magaalada Cali Sabiix oo kale xoog ayaa maaragtay dadka maaragtay loo laayay xagga maaragtay dad badan baa ku dhaawacmay 15 qof baan noo sheegay inay ku dhaawacmeen waxa maaragtay la arkay rasaas gidaaradii ku dhacday dadka reer Djibouti maaragtay Cali Sabiix ku dhacay rasaas may haysan waxaad garan kartiin cidda isticmaali karta rasaasta marka ay gidaaradii ay ku taswiirantahay rasaastii marka macabalbala sida oo kaleete ayaa xoog ayaa lagu muquuniyay oo la yiri maaragtay dadkaasi xaafadaha ha fadhiyaan ilbaabada ayaa loo hordhigay askar badan marka banaanbaxyadaasi waxa ay isku badileen imika banaanbaxyadii way socdaan ilaa maantada aan sheegayo shalay maaragtay banaanbaxya ayaa dhacay way socdaan wali hadda waayo inankii wali hadda hortaalkii ayuu ku jiraa meelakiisa dadka reer Djibouti maanta waxa taabanaysa dhibaatadii oo dhan ayaa meeshii taala taa in maaragtay liyadno fuad oo kaliyaatay maaha ee waxa jirta dhibaatadii xaqii maaragtay iyaga si u nool yihiin sida iyaga loola dhaqmayo dhibaatooyinka oo dhan ayaa wada yaalo waxa maanta ay dadku ay ku soo dhawyeen inay yiraahdeen madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa banaanbaxidii ugu dambeeyay ay ahayd madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ha dhaco ayaa lagu qayliyay awalkii hore waxay ahayd liyadno fuad la sii daayay waxa kaloon ku darayaa gabadh reer Djibouti ayana askariyad ahayd oo kabraal ahayd oo hooyo ahayd oo ilmo yar oo 7 bilood ah haysatay iyaduna inay tiri inay iscasishay markay aragtay sida loola dhaqmay liyadno fuad iyadoo iscasishay oo tiri maaragtay aan waan dhigay hadii ay askarinimadii aan u dhaaranay wadankayga inaan difaacno iyo xaqa ummadda inaan difaacno hadii ay sidaa noqotay oo dad ay iska yeesheen anna waan iscasilay gabadhii maanta iyaduna xabsi ay ku jirtaa ilmaheedii 7 bilood iyo iyadii way kala go'een way kala gureen naaskii ilmaha ay siinaysay maantada aan ila hadlayno ma jirto ilmi yara is ayuu u go'ay iyadiina is ayaa maanta xabsi ayaa lagu hayaa marka waxa weeyeen dhibaatadaas oo dhan ay dadka reer Djibouti maanta ay ka soo baxaan ay wali haadaan ay wadaan in kasteeto oo maaragtay xaqii draarihii dadka la arkayay idaacadaha maaragtay xoog loo arkayay inayna jirin oo waayo Itaal ayaa dharaartii la dul dhigaya marka dadkii habeen ayay banaanbaxayaan habeenkiina dawaska dhibaatadeeda ayaa iska leedahay waka sax hadeen wax yar dul istaagno duuliye fuad muxuu ahaa bal bulshada qaar aan garanayn baa jira Soomaalida na daawanaysa bal u faahfaahay duuliye fuad waxaan Soomaalida kali ay ku maqaalaa in laga soo qabtay Ethiopia ka hor muxuu ahaa qaab nuucee ayuu sadalka uga fakaday ama uga baxsaday bal faahfaahin naga sii duuliye fuad kuma aha duuliye fuad horta waa inaan reer Djibouti wadankiisa wax u bartay
waddankiisa sugayay maaragtay inuu de wixii uu bartay inuu maaragtay ku isticmaalo maaragtay wax u sameeyo inaan doonayay ayuu ahaa wuxuu la kulmay dhibaatada kale ee taala waddankayga maaragtay Djibouti waxa weeye waxa la yiraahdo dadka yara meesha haystay inay u dhaqmaan maaragtay qola yar inay u dhaqmaan qola yar oo maaragtay is yar u koobana markii uu sidaa u soo noqdayba waxa la yiri ninkaasi waa nin reer hebel ah waa nin reer qodaca marka waxaanu ka soo bartay de waxba nooguma taraysa annaga maaragtay isagu waa inuu meelaha iska joogo marka wuxuu arkay markii yaraydba inuu wixii uu soo bartay ee waddankiisa uu u faa'iid u lahaa in la leeyahay adigu waxba kama tirsanid waxba ma tihid dhulkaa yar iska joog waxa kaleeto la kulmay inuuna dalici karayn inuuna maaragtay nolol fiican u heli karayn waxa lagu soo gaadhay in bishaaradiisii uu qaadanayay in laga gooyo isagoo lagu eedeynaya maaragtay inuu kooraan iyo wax bixin waayey isagoo maaragtay ay u isticmaalayaan iyada oo maaragtay xagga lacagta askariga aanad weligii aad goyn karayn xaqa waddanka u yaali ay tahay askari lacagtiisa kama goyn karaysid iyadoo ah ayaa haddana isaga sida uu sheegtay laga gooyey lacagtii uu qaadanayay oo ninka u sarreeya ciidamada cirka haysta ee Djibouti uu isagu gacanta wax ka siinayay markuu isagu doono uu gacanta wax ka siinayay marka waxay ka dhigan tahay sharaftii aad lahayd wixii aad soo baratay de waxa laga soo qaadaya wax baabacdeedo qof uu ku leeyahay markuu qof isagu jeebkiisa wax ka siinayo de isaga aad u shaqaysaa waddan uma shaqaysid marka waxyugaa oo dhan ayuu horta ninkaasi qaadan waayey sida ahaan ayuu yiri waddankeena waxa ayaa ka jirta markuu soo duubay muuqaalka uu dadka reer Djibouti maaragtay uu hordhigay waxa uu yiraahday waxyo badan oo caynkaas waranahay ooyina maaragtay aanu dhibaatada caynkaas ayaan soo maray waddankeena dhibaatadaas oo dhan ayaa ka taala dadka reer Djibouti oo xaafadaad ku ooyisiin ka soo baxo oo xaqiina xaqiina oo dhan wada doonan marka sida ahaan ayuu maaragtay isaguna u fakaday uu maaragtay uga baxsaday waddanka markuu is arkay isagoo naftiisu inay khatar ku jirto dabadeedna waa tadee Ethiopia markii lagu qabtay Djibouti dib dambe loogu soo ceshay intii ka dambaysana waxa si xun ayaa loola dhaqmay oo jirdil oo maaragtay waxa noo maraga 10 cisho oo maanta maaragtay dadka reer ay dawladda Djibouti ayna qiranayn 10 cisho inay haysteen servisyada sirdoonka ee Djibouti taasoo maaragtay garaacis iyo maaragtay dhibaato kaseete lagu geystay dabadeed markii uu muuqaalka soo duubay dadka reer Djibouti ay kaceen dawladda Djibouti waxa ay samaysay warar been abuura inay samaysay ay dadka ay ku fariisinayso ay leedahay ninkaasi waxa uu leeyahay lima jirdilin waxa uu leeyahay noloshiisu waa fiicanahay ayuu leeyahay maaragtay isagoo loo isticmaalay isagoo qudhiisu aanan hubin maaragtay dadkii waraystay idaacadda Djibouti inayna waraysan loo soo maray qolo maaragtay xaquuqal insaanka Djibouti u dooda inuu hadal u jawaabay tii oo la marshay idaacadda Djibouti oo la leeyahay ninkaasi waxa uu leeyahay waa fiicanahay sidan kala taanahay hadalladii laga soo duubayna bar badan la qaluuciyay oo si kaleete su'aalihii la weydiiyay ma inay su'aalo kale la hordhigay hadalladiisii adu la sameeyay ayaa dadkii la soo hordhigay dadka reer Djibouti taana way ka sii xumaadeen oo arrintaana waxay u arkeen maaragtay wax la samaynayo ayay u arkeen marka inankii wali hadda beenihii way socdaan islaantiisa ayaa marwadiisa ayaa maanta hadlaysay islaantiisa ayaa hadlaysay oo lahayd ninkaas dadka reer Djibouti suuqa waxa loo gashay in kilomitir loo gashay in glacier loo dhigay waxay tiri imikada ayaan ka imiday waxaba yaraatee loo dhigay ma jirto ninkaasi xanuun jirka ayuu yeeshay intii la qabtay oo jirkiisii oo dhan baa go'aya waxay tiri dhakhtar looma ogolo inuu dhakhtar tago looma ogolo oo taana waa lagu diiday maaragtay macaaqaraynkiisii waa lagu diiday inuu maaragtay dhakhtar iska soo daweyn karo marka waa nin maanta dhibaato ku jira dadka Soomaalida ah ee adduunyada maaragtay naga dhageysan kara waa inay ogaadaan ninkaas iyo gabadha kaleete u soo baxdayba inay labadooduba maanta dhibaato ay ku jiraan dad badan oo kaleeto oo reer Djibouti maanta inay xidhan yihiin ciyaal ha ku ahaato gabdha yar yar
inama yar oo soo baxay dadkii soo baxaya inay xabsiyada Djibouti maanta daf ay ka yihiin maxamuudow waxaan aragnay baraha bulshada muuqaal uu suuli ama musqul hadba qofku sida uu yaqaan isagoo ka soo dhex duubay taasoo uu xabsiga uu ku xiran yahay qayb ka ahaaday taasoo ka baxsan bini'aadanimada ama Soomaalinimada dhaqanka Soomaalinimada wax ka baxsan ah maxay tahay dawladda Djibouti sida bini'aadanimada ka baxsan oo ay ula dhaqmayso maxaabiista muxuu yahay xabsiga noocan ah oo muwaadiniin kale Djiboutiyan ay ku jiraan ama fu'aad uu ku jiro qodiisa bal xabsigana faahfaahin inaga sii wallahi horta xabsigani waa xabsiga ugu weyn ee Djibouti ka jira waa xabsiga inta badan dadka reer Djibouti lagu xiro sax waa xabsi uu guumeysihii dhisay sax waad garan kartiin de guumeysihii sida uu dadka ula dhaqmayay maaragtay bilaadanimada dadka xorriyadoonka hawaagi waxa loo sameeyay ayay ahayd xabsigaas in lagu hayn karo oo kaliya 300 oo qof maanta waxa lagu hayaa dad ku dhow ilaa 1000 qof sax ayaa lagu hayaa capacity loogu talagalay xabsiga waa 300 ha iminkana waxa maanta ku xiran dad kun lagu qiyaasi karo ayaa maanta ku xiran sax dadkaas waxa la geeyaa de dhulkii waa kaniifyadii maanta ma aha xabsiyada maaragtay meelihii xabsiyada loogu talagalay waa la sii kala googooyay oo barba kaniifkii oo kaliya ina kan taw soo duubay oo kaleete kaniifkii weeyaan waa kaniif waa suuliga صح صح أنا سوليجا صح سوليجي واحد لكلا جوي سي ماركت بلاش اللوجو هلا دتك لوجو كلا حجيو صح إن سوليجي يمشي مخزن كي دتك اللوجو تلاقي إن لوجو هايو أيال كلا جوي صح مركب على قد دقي سوليجي مال حبسية أو ماركت قف لوجو هاي كرو أيال كده صح مركب تا أو دتك إن لوجو بهدلو قفك إن يد اللي يجدلو قفك ماركت إن dhibaato una weligii ka soo kicin doonto tala cabsoodo oo la yiraahdo warma meeshii kuma laami karayo waa cabsidii iyo argagixisnimadii dadka reer Djibouti loogu tala galay in lagu sameeyo ayay dawlad ayay taana daba socotaa tii horeetay askarinimada la isticmaalayay ciidamada sirdoonka la isticmaalayay dadka garaacayay marka qofkii xabsigii yimaadane dhibaatada ayaa u taala Djibouti waxa kale oo ogaatiin inay tahay wadanada ugu kulul adduunyada wadannada ugu kulul adduunyada inay tahay Djibouti taasoo marka meel caynkaas ah oo jiingad ay ku dul taalo suuligiina hoosta yahay meel caynkaas marka lagu hayo maaragtay waqti waxa dhacaysa qofkii inuu maaragtay niyadiisii amboonayta midnimada qof iimaannimadiisii iyo ka baxo oo hadda toolada xawayaan oo kaleeto wixii lagu taliyay hadda toolad ogolaanaysa ayaa meesha ka soo baxaysa waayo madaxaagii maskaxdaadii ayaa la dilayaa marka waa fikradda ah dadka reer Djibouti maaragtay waxaan wixii guumeysihii nooga yimiday waxaan wixii un bay daba socdaan dila dadka madaxa ka dila sida ayna madaxa sare u qaadin marka dawladdan maanta ka talisay wadanka walaalaheena Soomaalidu waa inay fahmaan war waayo maaragtay dadkan ka taliyo wadanka Djibouti war dadkani waxa weeyeen dadkii guumeystii la soo shaqeeyay wax la soo bartay kuwii ay siday wuxuu isticmaalayeen ayay u isticmaalaan maaragtay mar dad Soomaalinimo ah islaamnimo maaragtay qof bila aadana inaad sida ula isticmaashido sida u gafid ee bila aadanimadu kuma siinayso laakiin iyagu waa waxay ku dhaqmaan oo dad maanta tan ayaa la arkayaa dadka reer Djibouti dad badan oo reer Djibouti ayaa halka ku dhintay dad ayaa la soo garaacay markay naftu ka baxday halka la keenaa loo yiraahdaa si caadi ah ayuu u dhintay dad badan ayaan soo maray oo maanta waxa bilaabmay inay hadlaan raggii maaragtay golalka kale ilaalinayay inay maanta hadlaan ay maaragtay waxay ku og yihiin ay arrimaha sheegaan ayaa meeshii timiday oo dad badan oo maaragtay dhulka ka shaqeynayay ayaa qaadan kari waayay maaragtay shaqadoodii oo dabadaha u wada firxad oo dabadaha bar badan baa jooga oo maanta le maaragtay war waxa meeshaasi sida ayay u dhisan tahay intaayoo qof ayaa ku dhimatay sida ayay ugu dhinteen taa oo dhan baa imika soo baxaysa waxaad ogaatiin maaragtay meesha la yiraahdo xusbiga gabood maaragtay meesha magaceeda gabood la yiraahdo inay ka darnaan doonto haddii Djibouti ay xukunkani ka dhaco maaragtay arrimihii ka soo baxay
cabdi ile ee maaragtay Ethiopia Soomaalida Ethiopia dhibaatada xabsidii dadka uu ku hayay tu ka daran inay halka Djibouti ka soo bixi doonto dadka Soomaalidu waa inay ogaadaan sax okay gabagabadii barnaamijkeena ayaan maraynaa xisbiyadiina ama mucaaradkiina dibad joogga ah ee Djibouti ee aan maanta dalka ku laaban karin maxaad u samaysan weyseen madallo ama ururo aad ku midaysan tihiin si aad u challenge garaysaan madaxweynaha ama dawladda oo isla xisaabtan buuxa oo idin dhex maro dawladda iminka talada haysa way soo mareen dadka horta dadka reer Djibouti isku tagyo amba ururo maaragtay dadka ay ku wada midoobaan way soo mareen laakiin waxaad ogaataa dhinaca kaleetane dadka aad la dagaalamaysid iyagu qudhoodu way dagaalamayaan sax waa dad waliba ka lacag badan waa dad maaragtay awoodoodu ay ka badan tahay maaragtay dadkan maaragtay kuwan kaleete maaragtay mucaaradka waxa lagu soo dhex darsan karaa maaragtay ciidamadii dadkii sirdoonka ahaa ayaa soo dhex galaya maaragtay marka dad ururinay sida leedahay aan isku nimaadno meel ha marno kuwaayo fikradooda ugu horeysa ay tahay seen u kala daadinaa dadkan isku yimid sax marka dhibaatooyin badan oo caynkaas ah ayaa jira marka sida uu adduunyada kaleete uu aamusiinayo kuwan mucaaradkaana dad ayaa lagu darsaday sax oo iyagoo gacmaha taagayo oo la maaragtay mucaarad baan nahay xaggana bishaara ka qaata maaragtay lacagtooda bishii iska qaata sax xaggana sheeganaya maaragtay inay dadkii oo fikradda ay tahay dadka niyadda sidee looga jabshaa siday dadku ay u qirtaan ay yidhaahdeen mucaarad ma jiro wax mucaarad la yidhaahday ma jirto maanta de marka hadday dee mucaarad jirin dee tan maaragtay meelaha iska joogjoogno oo dadka niyadda laga dilo inayn dad kaleeto u dagaalamayay inayna jirin ayaa iyagu maanta dawladda Djibouti maanta ka talisay ma doonayso dadka reer Djibouti inay isjeclaysiiso inay wax u qabato ma doonayso laakiinse waxa ay baabi'inaysaa waxa ay leeyahaan lahaayeen maaragtay de niyad ambooleyte maaragtay ay oran lahaayeen dadka ayaa wax noo qabanaya ayaa la masaxaya si loo yiraahdo waxba ma jiraan sax maxamuudow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu wadanka ka talinayaa tan iyo 1999 taasoo maanta uu ku taagan yahay 22 sano ma la dhihi karaa cid challenge garayso oo la tartanta oo si sharciga kaga guuleysata ayuu la yahay horta waa su'aal fiican oo waxa anagu aan garanaynaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xusbiyada marka lala galo oo dhan tartan waxa soo baxda in waqti kaseete run ahaantii laga guuleysto laakiinse uu isagu rogto waxaan kuu sheegayaa sanadu markay ahayd 2003 in mucaarad habaysani ay la galeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo waxa la yiraahdo horta markay madaxtooye joogto de si kaleeta ayaa loo dhigaa dadka kama qayb gali karaanba dadka maaragtay challenge grain lahaa waxa lagu soo maaragtay lagaga soo saaraa xagga horeeta ayaa is loo dhigayo waxyo badan ayaa loo isticmaalaa marka iyagu kama qayb gali karaan marka madaxweynenimada inta badan dadku inta badan kama qayb galaanba laakiin xagga maaragtay baarlamaanka 2003 madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle run ahaantii waa laga guuleystay bay ahayd dadkii mucaaradka ayaa ka guuleystay iyaga ku dhoodu waxay qirteen bay ahayd in dadka mucaaradku ay heleen 7% inay heleen iyaguna ay heleen 3% waxa ay laakiinse taasi maysiin in qof xildhibaanihi oo mucaaradka ka socday inuu baarlamaanka Djibouti tago way diideen sanadu markay ahayd 2013 waa markii dhaweeyday maaragtay haddana mucaaradku ay dib dambe ta isku wada tageen sax waxa laga guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu soo saari kari waayay in uu natiijadii ka soo baxday maaragtay doorashada inuu adduunyada soo hordhigo uu diiday sax laakiin habeenkii markii ay ahayd 12 waa la tirinayay idaacadda maaragtay wadanka ee RTD-da la yiraahdo tira ayaa lagu jiray waxa horeeyay mucaaradka ayaa horeeyay ilaa 2000 oo maaragtay cod ayay ka horeeyeen qolada kale telefishoonka waa la baqtiyay dargab ayaa laga siiyay afartii habeenimo waxa soo fadhiistay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa soo fadhiistay
oo yiri waxa ku guuleysatay in xusbigii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay isagoona sheegin maaragtay sida ay ugu guuleysteen iyo meesha waxba ay soo dhigin ayay yiraahdeen annaga ku guuleysanay sida ahaan ayay meesha ay maaragtay mar labaad ay u sii fadhiyaan marka maanta ma jirto waa la iska wada garanaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle haddii uu run ahaan loola soo dhigto qof kasteeto oo reer Jabuutiya oo maaragtay yar mutacallima waxa la garanayaa in laga guuleysanayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laakiinse waxa jooga dad maaragtay intaa oo sanadood iyagu maaragtay jaalan garayn karaya laga dooranayo la wada garanayo Jabuuti waxa kamid ah Dr. Daahir baa kamid ah kuwa kale taa jira oo haddii maaragtay Ismaaciil Cumar Geelle la soo dhigto in laga guuleysanayo annaga way noo caddahay laakiinse waxa weeyeen waxa diidan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa diidan ba ila jaalan gareeyo maxamuud hadalkaaga waxaan u fahmay musharaxiinta madaxweynaha la tartanta waa kuwa malxiis ah isagu la yimaado sidaasaan u fahmay maadaama uu marka dhowr jeer ku soo noqnoqday kuwa isagu qofka loo ogolaanayo inuu la soo dhigto sax waa dad isagu gacanta lagu sameeyo dad lacag gacanta lagu sameeyo waa dad lacag iyagoona haysan oo waxba haysan aad arkaysa iyagoo baaburaac cad wata biritoole oo marka kaleeta haba yaraatay aanad arkayn marka mucaaradka kaleeta dadka kaleeta ay hadlayaan meel ma joogaan ayaanta doorashooyinkaasi ay socdaan baabuurra waaweyn iyagoo wata waa lacagtii oo dhan iyagoo bixinaya xusbiye mala dadkaasi maaragtay ninaan xusbi lahayn ninaan dad lahayn laakiinse ayaanta isagu diyaar ah waa gartay maadaama 21 sano oo dalka Jabuuti madaxweynuhu ka arriminayo dastuurku ma xadidaya 2 taam ama 2 jeer ka badan muxuu ka qabaa in uu dhowr mar soo noqdo madaxweynaha adigoo soo koobay horta waa 4 iyo maanta waxa wadanka ka taliya waa muddo 24 sanadood ee sarwsi dhaafaysa dastuur uu jiray wadanka dastuur ayuu lahaa 2 goor oo kaliya hatay maaragtay ogolaanaya madaxweynuhu soo laamo Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu masaxay 2010 sax ayuu masaxay isagoo isticmaalaya dadka reer Jabuuti la soo hordhigin la isticmaalayo baarlamaankaas oo isagu uu doorto oo isaga dad maaragtay isagu qalanka ku qoran maahina qof kaleeti uuna gelayn ayuu hordhigay kuwa ayaa doortay kuwa ayaa ansixiyay in la masaxo meesha laga saaro waqtigii labada goor ee madaxweynaha u ogolayd in meesha laga saaro marka maanta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa u furan maaragtay ilmaynta uu nool yahay maaragtay inuu isa soo taagi karo ayaa u qoran waana uu doonayo mar shanaad ayuu maanta maaragtay waxaan u socdo maanta waa mar shanaad waa markii afraad imku soo dhamaanaya markii shanaad ayuu hadoo la yiraahdo doonaya inuu maaragtay dadka reer Jabuuti uu yiraahdo iyaga ayay jecel maaragtay sax inuu la soo fariisto sida ay doonayaan gabagabadii barnaamijkeen ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya dadka Jabuuti ama Soomaalida ku daawanaysa maxaa fariin u diraysaa horta waxa weey dadka reer Jabuuti fariinta aan u diray waxa weey war dadka reer Jabuuti de wax kale oo dibadda uu neega imanaya oo maaragtay xoreynaya ay mid Mareykanka ku haato Faransiiska ku haato in kuwa kale Afrikaana ku haato Soomaaliya ku haato waxa la waxay doontaa ku haatee dad kale oo dibadda idiga imanayo oo xoreynaya ay ma jirto iniga un baa is xoreyn kara inaguna sida aad maanta aad u bilowdeen haddii aad ku adkaysateen dadka kaleetina adduunyadana way taageeraysaa haddii la arko dadka reer Jabuuti oo xaqooda u kacaya oo maaragtay doonaya inay wax bedilaan Mareykan uu taageeray Faransiis uu taageeray maaragtay walaalaheena Soomaalida way taageerayaan maaragtay deegaanku waana taageeray waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa taws nin la u galgasha tolo u irkiya sax maaragtay waa la taageeraa marka waxa weey dadka reer Jabuuti ayay u taalaa sida ay maaragtay xukuumadan meesha iyo maaragtay sida ay iskaga qaadi lahaayeen iyaga ay u taalaa walaalaheena Soomaalida fariinta aan u dhiibay waxa weeyeen in badan baa been inii sheegay in badan ayaa been inii sheegay oo rag yar oo maaragtay iska shaqaysanayay ay niga dhaadhicinayeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay nin qadiyada Soomaalida maaragtay degta ku sita nin qadiyada Soomaalida u dhaqdhaqaaqaya nin Soomaalida maaragtay dhibaatada haysata ka damqanaya
in badan ayaan iniga dhaadhiciyey laakiinse Soomaalidu waxay tiraahdaa waraabo habartii cunay maaragtay habaryartii ugama reeyo maaragtay qof dadkiisiiba cunaya waxaad eegtaa dadka Djibouti ku noolay waa dad Soomaaliya haddii uu Soomaali ninkani uu ka naxayo uu dhiigga ka daadanaya uu ka naxayo muxuu uga daadinayaa kuwan Djibouti ku nool oo isagu gacanta ku hayo صح waxa ku tusaysaa inuu ninkani weligiiba Soomaalida ka shaqaysanayay ee uu u shaqayn mar alla marka ay Soomaalidu maaragtay maanta waxaan daawanayay maaragtay documentan ay raadiyo Soomaaliya ay soo saareen oo sheegaya maaragtay in rag badan oo al-shabaab ah inay passportka Djibouti maaragtay adduunyada ay maaragtay ku tamashleeyaan ay ku tagaan waxa ku tusaysaa sida ay ugu xidhan yahay dadka isagoo dhinacanna leh waxaan ahay ninkii dedeminaya dabka inuu xaggan isagu dabka ka shido ayay ku tusaysaa arinta Soomaaliya صح waa arinta Soomaaliya isagu faraha maaragtay meel kaseetaba uu kala jiro sida uu Ethiopia markii dhaweed uu gula jiray la soo qabtay maaragtay hub badan oo Djibouti maraya oo maaragtay tagay Ethiopia hub badan oo Djibouti soo maray oo Soomaaliya tagay oo la garanayn meel alla meel uu ku socdo marka dhibaatada Soomaalida Ismaaciil wax badan ayuu ku leeyahay oo dhibaatada inuu sii socoto ayuu doonayaa waayo isaga adduunyada wuxuu ka iibinayaa wadankaasi inta uu maaragtay khalkhalka ku jiro oo dhibaatadaasi ay ku jirto inuu adduunyada yiraahdo anigu waxaan ahay meel degan isagoo dadka reer Djibouti afka kaga jooga ayuu ka dhaadhicinaya dadka walaalaheen Soomaalida waxaan leenahay war ninkana taageersan tihiin dhibaatadiina ayuu isagu u dhaqdhaqaaqaa صح waa inaad ogaatiin dadka walaalihiina ee reer Djibouti ayaa inay jecel dadka ayaa maaragtay doonaya maaragtay Soomaali inay meel isku timaado inay maaragtay dhibaatada ka baxdo dadka haddii aad maaragtay afkii aad ku taageertiin haddii aad garab joogsatiin dadka ayaa inii baahanay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waa nin maaragtay dadka reer Djibouti afka kaga jooga oo dhiigooda daadinay dad Soomaaliya inigane dhibaatadiina lacag iyo maaragtay sharaf ku doondoonaya marka waa inaad ogaatiin hal dhibaatada oo inagu hayo waa inaad ogaatiin صح aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Jaamac agaasimaha idaacadda codka Djibouti oo ku sugan dalka Faransiiska oo igala qayb galayay barnaamijka kulanka oo aan kaga hadlaynay xaaladda dalka Djibouti intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii kulanka waxa idin la socodsiinayay anigoo Cali Xildoon tan intaan barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono bahdeena isku duuban waxaan idin leenahay sida ay nabadgelyo